waxaa la rabaa in laga run sheego مثلا gabadha hooyada hadii laga soo doonto wiilka gabadhu intay is soo fahmaan maxay gabadhi laga soo doonto waxa la in la soo fadhiisto inta aad leedahay oo nuqsaan ah inaad u sheegto wiilka asaguna inta uu leeyahay nuqsaan inuu ku sheego ayadoo arintu ay cadahay ay waadix tahay oo laab uusan ku jirin ilaahay ka cabsina arintu aysan ka marnayn oo aan lahayn Yurub ha ikxeeyo aysan ku jirin oo aysan ku jirin muxuu ahaayeeto maanta Allah ilaahay qorshaha suulee ilaahay uu noloshin hadii doonto dirin ha ka bilaabato hadii doonto kalsooni iyo sidqi waa lagu dhisaa kulay waxaan u tartaarmayaa gabdhaha iyo wiilasha aniga kuwaygu way joogaan banaanka iyo wiilasha gabdhahaygu waxaan ugu tartaarmayaa noloshooda inaysan ka dhigin nolol mucallaqa oo ku xiran waxaan jirin nabi عليه الصلاه والسلام حديث wuxuu leeyahay wa hawa mutabi' fi sudul aakhirah macna hawadaada oo aad raacdo aakhirada ku ilowsiida marka guurkaana hadii uu ku hagaago waa jannadaada hadii uu ka xumaado oo wax ka qaladana naartaadu noqonaya marka inuu san naarteena noqon oo ilaahay ka cabsi dan ku gaar ayna gabadhiina ayna ka noqdantaan ku gaar wiilkiina aysa ka noqdantaan ku gaar ay noqdaan bayt muslima oo ilaahay dartii ay u dhisaan runtana la soo sheego faan iyo waxaan wax tareen wax ma tarayaan waxa la rabaa xaqiiqada in laga hadlo lianna waxa la dhisayaa bayt aan caadi ahayn marka taasan gabdhaha iyo wiilashaba aan u dardaarmi lahaa inaysan gabdhuuna wiilasha aysan sabirixin oo waxaysan haynin ay ugu faanin oo been aysan u sheegin wiilashana gabdhahana wax aan ku jirin saasan ahay intaan la maraa inaysan dhihin xaqiiqada in la isaga hadlo الله كعبسن تاسان مارت وسو كوبله هذا الكيك آذاد من